xilligii dawladdii hore Itoobiya waxay xirtay biyaha webiga Shabeelle kolka oo dalka ay ka jireen abaaro galaaftay nolosha dadka iyo dunyada laakiin maamulkii madaxweyne Xasan Sheekh waxba kama uusan qaban arintaas dawladda hadda jirta waxay maxaabiista sida sharci darrada ugu xirnaa Itoobiya xorriyadooda u soo celisay May 2015 midowga Yurub waxa uu safaarad ka furtay xerada Xalane kadib dhul bilaash ah oo dawladdu siisay balse waxa ay shuruuda shaqada xaruntaasi ka dhigeen in qof Soomaali ah uusan ka shaqayn karin July 2017 dawladda hadda jirta waxay xisaabin ku bilowday 157 shirkadood oo ka shaqeeya gudaha Xalane oo aan bixinin wax canshuur ah wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Soomaaliya ayaa u sheegay madaxda shirkadaha Xalane ka howlgala inaysan ka sii shaqayn doonin dalka haddii aysan u hoggaansamin shuruucda dalka maamulkii hore ciidanka iyo shaqaalaha dawladda marnaba mushaarkooda uma heli jirin si joogto ah hadda wasaaradda maaliyadda waxay ku guuleysatay in askari walba oo Soomaali ah mushaarkiisu uu kala baxo akoonkiisa iyadoo aanan gacan kale la marinayn taas oo aanan horay u jirin afartii sano oo ay jirtay dawladdii hore waxa hareeyay musuqmaasuq iyadoo aan wada ognahay in UN Monitoring Group ay dhowr jeer soo saareen eedeymo musuqmaasuq la xiriira balse maanta Soomaaliya waxa ay muujisay inay mudan tahay in laga dhaafo deymaha lagu leeyahay daahfurnaan awgeed dilalka xildhibaanada iyo dadka indhaawaha bulshada ayaa 4 sano dalka hareeyay balse sanad kadib waa ay yaraatay kadib markii ay si adag u shaqeeyeen ciidanka sirdoonka waxa la dhisay ciidanka xasilinta caasimadda oo xakameeyay hubkii faraha badnaa ee magaalada lagu dhaxwatay wali ammaanka ma dhamaystirna balse waa u dhaamaa sidii hore in ka badan 15,000 oo dhalinyaro ah ayaa dalka gudihiisa shaqo abuuris dawladdu ugu samaysay taa oo kor u qaaday niyadda dhalinyarada halka taas aysan hore u jirin balse waxaa jiray dalka dibaddiisa fursado dawladdii hore ay shaqo uga heshay gabdho Soomaaliyeed dalka Sacuudiga dawladda madaxweyne Farmaajo qaladaad badan baa ka dhacay balse wax badan bay kaga duwan tahay tii Xasan Sheekh nabad waa nolol nabad la'aanteedna lama noolaan karo waxa aaminsanahay inay nabad u tahay nolosha dhan nabadu waa furaha nolosha nabadu waxa weeyaan wax bulsho ku horumarto Soomaalida waxay ku maamaalaan nabad baa naas la mugale nabadi haddaanay jirin nolol ma jirayso nabad waanta aad oo faraxsanahay farxadeena soo goobi karo inay nabadu macaantahay adduunyaduna ay jeceshahay umiyuhuna ku nool yahay in la dhowrowa jib ay tahay sidaan waan wada ogsoonahay